midnima adduunyada lagu wada matooba haduumaan ku laban yahay dadku malama yeeshee midnima adduunyada lagu wada matooba haduumaan ku laban yahay dadku malama yeeshee midibkuba miciin male hadday bidixdu maqan tahay walaba mataano hawsha maamulaaye midibkuba miciin male hadday bidixdu maqan tahay walaba mataano hawsha maamulaaye maangaabka taladiisa waa maqana jooge waanada maqaato wuu mana maleeyaa maangaabka taladiisa waa maqana jooge waanada maqaato wuu mana maleeyaa mahmahadi dhaqan waxaanu dhex taaganahay beerihii gobolka mudug ayada oo macnaha maalin farxad leh ay tahay kana soo qayb galeen mas'uuliyiintii gobolka mudug madaxii ugu sareeyay gudoomiyihii gobolka iyo dhalinyaradii oo sida taahidii iyo dhaqankii iyo annagii oo gobolka mudug kula labistan astaantii Soomaaliya iyo Puntland isla markaasna diyaar u ah inaanu aamino falano u diyaar garowno waxna kala soo baxno dalkayga asagoo oo nimcooyinka uu leeyahay aysan ahayn wax la soo koobi karo beertaani waxay isugu jirtaa geed mirood ka kooban cambe saytuun lindanaan isbaandays moos muxuu ahaa qasab babaygi aya nooc geed mirood oo dhan waa ku dhamaystiran tahay beertaani marka ay ku dhamaystiran tahay markaan haatan aan hoosteeda dhex taaganahay waxa soo galay iyo aad u xad badan waxay la tageen baati cash crops-ka hoose waa nagala tageen waxa hadda idin muuqdaana waa geed miroodkii iyo muxuu ahaa qudaar hoose oo ka baxday iyo caws isku dhex jiro oo hadda faliin lagu hayo waxaan ku faraxsanahay oo aan ku qanacsanahay khayraadka uu leeyahay dhulka iyagu oo ugu horeeya mooskii oo aan hadda gacanta ku hayno waxaan tusi doonaa cambihi oo geedaha ku yaala waxaan tusi doonaa saytuunka iyo geedihii ku yaala oo aan la qarinaynin waxaan ugu horeeyno hadda aan haynaana waa mooskii ilaahay waxaan uga mahadnaqaynaa oo aan ilaahay uga mahadnaqaynaa nimcooyinka ilaahay naga siiyay dhulka iyaga dadkana waxaan u sheegaynaa hadday yihiin jaaliyadaha dabadda hadday yihiin reer Puntland hadday yihiin dadka daafaha dunida ku nool in dhulku qani yahay meel kasta oo uu dhulku joogo dhulka Soomaaliya inuu qani yahay xooluhuna ay hodan ku yihiin beeruhuna ay ku yihiin hodan isla markaasna dadkiisu inuu soo jeesto oo maalgashi uu ku sameeyo ay haboon tahay marka dadka qurbaha ku nool oo ku haya dalkii nabadi kama jirto inta dabada habsaanka ku hayeen baa dalka wax lagala soo baxay ku soo dhiirada oo soo daneeya oo ka soo qayb gala barnaamijyada iyo muxuu ahaa horumarka ka socda dalka magaalo madaxda macnaha gobolka Puntland gobolka Galkacyo ku soo dhawaada waan idinku soo dhawaynaynaa Puntland khayraadka بسم الله الرحمن الرحيم
calafnimo u diiday cuni waaye mooye ciideennu waa hodan maanta waxaanu taagannahay beeraha dooxada roox gobolka mudug degmada gaalkacyo sida la wada yaqaanay dhulkan iyo dhulka ilaa iyo waqooyi galbeed dalagga beeraha waxaa looga keeni jiray janaal iyo sharaambood maanta waxaanu dhex taagannahay cambihii iyo mooskii iyo liintii iyo saytuunkii iyo canuunigii iyo waxa way qasabkii wax walba iyo dal qudaartii ayu nooc oo ka baxaysa gaalkacyo gobolka mudug waxay ku tusaysaa inuu dhulku hodan yahay khayraadka dhulka ku jira lala soo bixi karo dadkuna ay maanta u jihaysteen in beertan waxaa laga raraa baabuur waaweyn oo qudaara iyo inta la midka ah oo ku xeeran agagaarku waxay kafeeyeen qudaartii looga keeni jiray janaal iyo sharaambood magaalada gaalkacyo in halkan looga soo saaro noocyada mooskan aan gacanta ku hayno waa mooskii moosbukeeniga la oran jiray oo waxa weeye macaanka badnaa oo Soomaaliya ay hodanka ku ahayd kana waa cambihii kuwan hareeraheena taagan waa liintii iyo saytuunkii iyo cambihii sidoo kale barni waxay tusaale u tahay gabdhaha Soomaaliyeed haddii ay dhulka maal gashadaan inay khayraad fara badan ka soo saari karaan beertan dad 100 qof ku dhow ayaa ku nool kuwa shaqaale ah kuwa xoolaha ka ilaaliya kuwa beerta ka shaqeeya kuwa waxa weeyaan gaadiidka ka shaqeeya kuwa qalabka ku shaqeeya kuwa suuqa ka shaqeeya kuwa iibiya intaas oo dhan waxa weeyaan waxay kafeysay oo ay shaqo u abuuray dad ilaa iyo 100 qof ku dhow waxay ku tusaysaa marka haddii dalka la maal gashado in khayraad fara badan uu dalka ku jiro dalkana wax laga soo bixi karo waxaan leenahay marka wuxuu dalkeenu u baahan yahay khayraadka ku jira baddeena in lagala soo baxo khayraadka ku jira barigeena in lala soo baxo khayraadka xoolaheena ku jirana in lagu intifaaco hiddii iyo dhaqankeena soo banaa inaynu u noqono hodan ayaynu nahay bari ayaynu nahay khayraad fara badan ayaa ilaahay ina siiyay khayraadka ilaahay ina siiyay waxay u baahan yihiin caqliga aynu uga faa'iideysan lahayn sugayno aynu khayraadka dhulkeena ku jira wax kala soo bixi lahayn tusaalena waxa uu ah beertan aan maanta dhex taagannahay oo dalag walba ku yaallo waa gobolka mudug magaalada gaalkacyo waxay ku tusaysaa inay tahay horumar gobolka ka hirgalay oo dadku ay u jeesteen hawlgali lahaa oo maalgashan lahaa waxaanu mar dhow tagaynaa xoolihii oo la degaameeyey geelii barqamaalka ahaa ee 24 saac caanaha iyagoo fareesha laga geyn jiray gaalkacyo waxaan ku baaqaynaa dalku wuxuu u baahan yahay in khayraadkii lala soo baxo in la isdilo inaynu iska dayno in la isdhaco inaynu iska dayno in la isku mashquulo oo wax la iska sheego inaynu iska dayno khayraadka dalkeena ku jira inaynu Place to
سبيل دحدودو وعانا منادنيو بلعسقا إلى قابات كالي بيتي عدد بيت